أيورات أيا تيمين كانكي أيا قبتي داركي أيا عاري dalka Soomaaliyeed oo dhan dadkeena mee joogaanba kacaankii labaad ee dalkeena ka dhacay waxa madax u ahaa Maxamed Cabdulla Xasan سيد محمد عبد الله حسن wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee gaalada la dagaalamay naftiis ugu rooha oo inuu Soomaali xornimo u soo ceshayo doonay ujeedadiisu waxay ahayd gobonimo doon meeriska dhulku wuxuu sameeyaa laba wareeg mid uu ku sameeyo orbidka yaa kala arday kala intaan doonayna marka adiga أما كان يا أرجع حبوا